gudoomiyaha xisbul xaakimka talada Somaliland haye ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga ayaa shacbiga reer Somaliland iyo guud ahaanba ummadda islaamka ku hambaliyay munaasabada Ciid Fidriga awgeed isagoo shacbiga Somaliland gudoomiyuhu alle uga bariyay inay sanadkiisa ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo. ilaahay baa mahadleh ilaahay nasiinay cooyinka badan caafimaad ka mid yahay nabadu ka mid tahay horumar ka mid yahay bisha barakaysan ee Ramadaantuna ay ka mid tahay sanadkan 1437 hijriyada ah soonka Ramadaan ciidiisa waxaan ku hambaleynayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel joogaanba waxaan rajaynayaa dhamaantood barwaaqo horumar si gaar ah waxaan u hambaleynayaa shacbiga Somaliland meel joogaanba waxaan rajaynayaa dhamaantood bashbash iyo barwaaqo dalkeena horumar ummadda oo ilaahay wixii khilaaf iyo dhibaato ka saaro wixii dhintay oo Allah u naxariisto waxa buu kale inoo caafimaadiyo inteena kala gacmaha qabsto dalkeena horumarintiisa iyo wanaagiisa ka wada shaqeysa ilaahay idinka waxa ka rajaynayaa sanadkiisa inaan ku gaadho bashbash barwaaqo ilaahayna ina gaarsiiyo Ramadaanada soo socota iyo kuwa kale badanba. hogaamiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa baaq nabadeed u diray bulshada reer Somaliland ee dirirtu dhawaan ku dhaxmartay deegaanka Dharkeengeeyo ee gobolka Sool. waxaan ummadda ugu baaqayaa gaar ahaan gobolada bariga ay xoogga shaqada ka jirto Dharkeengeeyo in nabadda lagu dadaalo in shaqadaas la qaboojiyo in caqligu shaqeeyo in waayeelka guurti leh gurmadka badan ee isu yimid hawsha wada ee madax dhaqameed leh dawladda leh xukuumadda leh arintan lagu gacan qabto oo nabad la soo celiyo in dhiigga muslimiinta isku daadan la joojiyo baaqana waxaan dilayaa arinta Dharkeengeeyo ilaahay wixii khalkhalay khilaaf wax naga saaro nabad iyo caano iyo dalkeena horumar ee ilaahay ka baryana. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland caasimadda Hargeysa.